بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن صاحبة قيمها أي قدرتين نجمدنا هل كان يوا سلطان كتيفي أو دوا برتين ورسحن حقيقة كوسا ليسنا يحققها كجر الصومالية وأنت واقميس تاريخ دون وحيكون بيجنتاي شنطة بشكل يتبنى نوفمبر سنة تكون والله بدأ كون لبعتان قد بدأ حساب بدنا سوق هذا دونا وحكم النقانية دوما وضع العقب فربضنا لو قبتي حيبها الصومالية هي ciidamada badda Soomaaliya oo baadi goobaya dooman kale oo la sheegay inay gudaha Soomaaliya ay soo galiyeen lacag ka imaadey wadamo kala duwan warkayaan ku eegi doonaa Imaaraadka Carabta oo lagu eedeeyay inay fargelin ku hayaan doorashada Soomaaliya iyo waliba hanjabaad loo diray warkayaan ku eegi doonaa qodobada kale aan soo qaadan doonaa waxa kamid noqonaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo calaacal afka furtay kadib markii boorar uu ku dhajiyay laamiyada magaalada Muqdisho laga fujiyay warkayaan ku eegi doonaa qodobada kale aan soo qaadan doonaa waxa kamid noqonaya wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay doorashada Hirshabelle iyo waliba hambalyo loo diray guddoonka baarlamaanka Hirshabelle warkayaan ku eegi doonaa waxaan kale oo soo qaadan doonaa wasiir maareeyo oo ka hor yimid bayaankii xildhibaanada dir ay kula safteen xukuumadda Soomaaliya iyo waliba war kale oo soo saaray qodobada kale aan soo qaadan doonaa waxa kamid noqonaya Shariif Sheikh Ahmed oo olole aan caadi ahayn ka wada magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle iyo waliba warar sheegaya in doorashada Hirshabelle uu la wareego warkayaan ku eegi doonaa waxaan kale oo soo qaadan doonaa xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolka Tigray ee Ethiopia kadib weerarkii uu amray Abiy Ahmed oo sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan iyo waliba wararkii ugu dambeeyay doorashada Mareykanka haddaba Joe Biden iyo Trump yaa qarka u saaran inuu ku guuleysto doorashada Mareykanka xogihii ugu dambeeyay Mareykanka ayaa warka ku soo qaadan doona saaxiibada qiimaha iyo qadarinteena naga mudan subscribe inoo saara YouTube-keena siina share gareeya muuqaaladan soo gelino oo saaxiibada u sii qaybiya si ay kula daawadaan wararka warbixinada iyo waliba muuqaalada aan uga hadlayna xaaladda Soomaaliya iyo midda caalamka like tahnigi loobin comment-iga noogu reeb wararka iyo warbixinada iyo waliba waxyaabo aan soo gelino YouTube-keena ku soo dhawaada qodobada dhameystiran aan ku bilowno warkeena dooma wada lacag fara badan ayaa waxa lagu qabtay xeebaha Soomaaliya waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada badda Soomaaliya ay soo qabteen dooma soo gelin rabay gudaha Soomaaliya lacag fara badan doomahan la sheegay inay ka yimaadeen dalka isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa waxay wararku sheegayaan in lagu qabtay dekada Ceel Macaan taasoo wararku ay sheegayaan in laga soo dejin rabay halkaasi wararku waxay sheegayaan in iminka la baadi goobayo dooman kale oo la sheegay inay wadeen lacag fara badan kuwaas oo aan la aqoon halka ay ka keeneen balse wararku ay sheegayaan in laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta lacagahan la soo geliyay gudaha Soomaaliya lacagahan ayaa waxa loogu talagalay in lagu kala furfuro doorashada Soomaaliya iyo waliba in loo qaybiyo xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka waxayna wararku ay sheegayaan in ciidamada badda Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen laba doomood oo waday lacag fara badan taasoo ay baadi goobayaan dooni kale oo la sheegay in lacag ay soo gelisay xeebaha Soomaaliya wararku waxay sheegayaan in ciidamada badda Soomaaliya iminka ay gacanta ku hayaan doomankaasi kuwaas oo lagu qabtay xeebaha Soomaaliya wararku intaas ay ku darayaan in iminka ay jiraan cabsi laga qabo in lacagahan lagu kala furfuro siyaasadda Soomaaliya iyo waliba xubnaha murashaxiinta ee doonaya inay ka qayb qaataan doorashada Soomaaliya in loo qaybiyo xildhibaanada qaar ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay wararku sheegayaan inay lu kuleeyihiin lacagahan kuwaas oo ay ka dalbadeen sidii ay ugu soo laaban lahaayeen kursiga ay ku fadhiyaan xogo kale ee hela suldaanka TV ayaa waxa intaas ay ku darayaan in iminka lacagahan ay gaarayaan dhowr bilyan oo dollar waxaana ay ka yimaadeen sida ay sheegeen ciidamadu dalka isu taga Imaaraadka Carabta taasoo aan la aqoon halka ay ka soo qaadan doomankaasi balse ay soo gelin rabeen gudaha caasimadda Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa intaas ku darayaan in lacagtan lagu wareejiyay dawladda Soomaaliya iyadoo iminka aan la ogeyn waxyaabaha ka dambeeya iyo cidda amartay in la soo geliyo gudaha Soomaaliya lacagahaasi waxaana loo aaneynaya in xisbiyada mucaaradka iyo xubnaha ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya ee la tartamaya doonayana inay olole ka sameystaan magaalada Muqdisho lacagahan loogu talagalay wararku intaas ay ku darayaan in iminka baaritaan rasmi ah lagu hayo lacagahaasi iyo waliba cidda ka dambeysay in la soo marsiyo badda Soomaaliya dhanka kale dalka Turkiga ayaa Imaaraadka ku eedeeyay inuu faragelin ku hayo doorashooyinka Soomaaliya isagoo hanjabaad hawada u mariyay haddii uu joojiyo faragelinta in talaabo uu qaadi doono Turkiga dalka Turkiga oo si weyn u taageera dawladda Soomaaliya garab iyo gaashaan oo ah shacabka Soomaaliyeed iyo waliba dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu mar kale hanjabaad hawada u mariyay dalka isu taga Imaaraadka Carabta taasoo ku sheegay inuu faragelin ku hayo doorashada Soomaaliya iyadoo iminka isu taga ay ku sugan yahay hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani taasoo wararku ay sheegayaan in halkaasi uu u joogo arrimo ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo sidii Imaaraadka Carabta ay uga qayb qaadan lahaayeen Turkiga ayaa waxa uu soo saaray bayaan uu uga hadlayo Imaaraadka Carabta taasoo ku sheegay in iminka loo baahnayn in faragelin lagu sameeyo doorashada Soomaaliya taasoo ku sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in laga kabo dhinaca amaanka oo kaliya balse aysan u baahnayn in siyaasadeeda faragelin lagu sameeyo waxaana uu sheegay in dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya ay u madax banaan yihiin doorashooyinka ay waliba guud ahaan arrimaha siyaasadda ee ka jira Soomaaliya taasoo ku sheegay in cidii hor istaagtay doorashada Soomaaliya oo Turkigu talaabo ka qaadi doono
ma ahan markii ugu horeysay ee Turkigu oo uu hanjabay Imaaraadka Carabta taasoo iminka dagaal xoogan uu kala dhaxeeyo. wararku waxay sheegayaan in hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo uu ku leeyahay lacagaha la soo gelinayo xeebaha Soomaaliya taasoo aan la ogeyn ujeedada iyo waliba siyaasadda uu ka damacsan yahay. dhanka kale siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qayladaan afka furtay kadib markii boorar uu ku dhajiyay magaalada Muqdisho ay ka fujiyeen ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ay fujiyeen boorar uu ku dhagsaday Muqdisho oo ku muujinayay inuu yahay murashax madaxweyne. waxaanu ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay ka dhiidhiyaan gabood fal uu sheegay in loo geystay xisbiga wadajir iyo waliba boorarkii uu suray laamiyada Muqdisho. waxaan cambaaraynayaa gabood falka ciidanka ilaalada madaxtooyada ay ku fujiyeen boor ku dhaganaa kasoo horjeedka xarunta baarlamaanka ee Soomaaliya oo lagu soo bandhigay sawir muujinaya murashaxnimada xilka madaxtinimo ee aan sanadkan 2021 ugu taaganahay. ciidanka ayaa shirkadda boorarka ku lahayd waxay ku amreen in la fujiyo sawirkaasi. waxaana sidoo kale uu ku calaacalay in bulshada Soomaaliyeed ay garab ka siiyaan xisbiga wadajir dhibaatada loo geystay waa sida uu sheegay. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo mar kale u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu doonayaa inuu ka qayb qaato doorashada Soomaaliya iyadoo iminka ay jiraan cabashooyin kala duwan oo u diraya shacabka Soomaaliyeed taasoo muuqata in ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ay ka fujiyeen boorar oo ku dhajiyeen laamiyada Muqdisho kuwaas oo ku qoray inuu yahay murashax madaxweyne. wasiirka hore warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hor yimid bayaan ay xildhibaanada direed ku safteen xukuumadda Soomaaliya. wasiirka hore ee warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa si adag uga hor yimid bayaan ay soo saareen qaar kamid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo ka soo jeeda gobolada waqooyi. Maareeye iyo waliba garab uu hogaaminayo oo iskugu jira xildhibaano odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin oo ka mid yahay Faysal Cali Waraabe ayaa waxa ay ka hor yimideen warkii ka soo baxay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale xildhibaanadan ayaa horay ganaf kugu dhiftay in dalabkii gudoomiyaha aqalka sare ee ahaa in xubnaha Somaliland ku matala gobolada waqooyi gudiyada doorashada iyo waliba xalinta khilaafaadka ee heer federaal ay ayagu soo magacaabi doonaan. Master Maareeye ayaa war saxaafadeedkaasi ka soo saaray waxaanu isagu sheegay in qodobadii kulankoodii ka dhacay magaalada Nairobi ee xildhibaanadaasi aanay waxba ka jirin oo aysan sharciyeed ku fadhinin. aniga ku hadlaya magacayga xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye magaca xildhibaanada labada gole ee dir ee waqooyi aynu isku mowqif ka nahay iyo magaca murashaxiinta madax dhaqameedyada iyo waliba bulshada midnimada u taagan dir waqooyi oo aan codkooda gudbi karin oo ilaa iyo maalmahan soo wacayay. waxaan doonaynaa in aan ka soo horjeesano si wada jira warkii ka soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka hore warfaafinta Soomaaliya. Maareeye ayaa sidoo kale sheegay in xildhibaanada kulankaasi yimid ay ahaayeen kuwa ay ka dambayso dawladda federaalka Soomaaliya oo culays ku saaraysa inay taageeraan rabitaankooda si mar kale ay ugu soo laabtaan kursigooda ayuu hadalkiisa sii raaciyay. waxa waxba kama jiraan oo ku tilmaamay inuu jiro heshiis ay ansixiyeen baarlamaanka oo dhigaya in xukuumaddu ay u madax banaanaato maamulada kuraasta dir waqooyi kaasay u cuskadeen xildhibaanadii garab istaagay xukuumadda Soomaaliya. dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay war saxaafadeed ka soo saartay gudoonka baarlamaanka ee Hirshabelle ee lagu doortay magaalada Jowhar waxaana ugu hambaliyeysay gudoonka lagu doortay magaalada Jowhar ee ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle. arrintan ayaa waxay u muuqataa in wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ay la dhacsan tahay qaabka ay wax uga socdaan magaalada Jowhar taasoo ugu hambaliyeysay gudoonka cusub ee loo doortay Hirshabelle. dhanka kale wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in Itoobiya ay qarka u saaran tahay inay ka qarxaan dagaal la sokeeyo kadib markii Abiy Ahmed oo amray in dagaal lagu qaado maamulka Tigreega ee ka tirsan Itoobiya. waxaana wararku ay sheegayaan in dagaal lagu hoobtay uu ka dhacay halkaasi iyadoo ciidamada federaalku ay weerar ku qaadeen xarumo ay ku sugnaayeen ciidamada Tigreega. waxaana wararku ay sheegayaan in amanka xaaladda Itoobiya ay qasan tahay iyadoo laga cabsi qabo in halkaasi uu ka qarxo dagaal u dhaxeeya Tigreega iyo waliba ciidamada federaalka. wararku waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu amar ku bixiyay in guud ahaanba la dhaqan geliyo amarkiisa oo ku aadan in weerar lagu qaado ciidamadaasi. muddo 6 bilood ah ayaa wax lagu soo rogay bandow maamulka Tigreega iyo waliba gobolada uu ka arrimiyo taasoo u muuqata in iminka xaaladda Itoobiya ay qarka u saaran tahay in dagaal sokeeyo uu ka qarxo. ugu dambeyntii Mareykanka haddii aynu eegno Joe Biden ayaa waxa uu qarka u saaran yahay inuu ku guuleysto doorashada Mareykanka. wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya dalkaasi Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in Joe Biden uu ku horeeyo codad gaaraya 40% taasoo u muuqata in iminka uu qarka u saaran yahay
inuu ku guuleysto doorashada Mareykanka. dhanka kale Donald Trump ayaa war soo saaray waxa uu ku sheegay inuu soo aqbali doono natiijada soo baxda haddii looga guuleysto doorashada Mareykanka, taasoo u dhigan in mar kale dib loo kala saarayo codadkii hore oo tirinta dib loogu celinayo. siyaasiyiinta falqay arrimaha dibadda ayaa waxay sheegeen in Donald Trump iminka uusan aqbali doonin doorashada ka dhacda Mareykanka haddii looga guuleysto kursiga madaxweynaha, taasoo u muuqata in iminka cabsi kale ay soo wajahdo codbixiyaasha kadib markii la sheegay in Donald Trump uu ku hanjabay arrimahaasi. bartiisa Twitterka ayaa wuxuu ku soo qoray warbixin uga hadlaya doorashada Mareykanka, waxaana aflagaada toos u geystay Joe Biden iyo taageerayaashiisa, isagoo ku sheegay kuwa aan waxba garanayn oo u codeynaya cid aan u danaynayn Mareykanka. waxaana sidoo kale uu warbixintiisa ku sheegay in natiijada soo bixi doonto uusan aqbali doonin haddii aan si sax loo tirin codadka, waa sida uu sheegay. saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan, halkani waa Suldaanka TV, subscribe saara Suldaanka oo sii share garay muuqaaladan soo gelino saaxiibada u sii qaybisay kula daawadaan, like tahniga iyo comment-ina noogu reeb wararka warbixinada iyo waxyaabaha soo gelina YouTube-keena. warkiina halkan ayaan ku soo koobayaa. nabadgelyo saaxiibaya.